السلام عليكم magacayga waa Ayaan Maxamed waxa ahay mental health nurse waxa ka shaqeeyaa isbitaalka oo xil saaran cudurka dhimirta marka maanta meesha waxa fadhina ana ka hadalna mental health and well-being mental illness ka lagu sheegayo waxa waaye the way your behavior and the way you act mental well-being kana waxa waaye your social emotional and psychological well-being social waxa waaye bulshada ku jirtid iyo asxaabtaada iyo your passion in outgoing and social interactions emotion kana waxa waa dareemaheena psychological na maskaxda sida u shaqeynayso marka mental illness and well-being mental health maxal dhahaa ilmaha from sanad ay jiraan 4 sano ilaa 17 sano waxa la dhahay 1 in 7 so waxa halkii cunug ilaa 7 cunug markii la isku keeno hal qof baa cudurka in their lifetime helayso adults can from 18 to 90 waxa waaye 2 in 5 so that's a huge statistics ana kana maxal dhahaa community ahaan Somali community mental health and well-being and mental illness waa waxa ka hishoono oo energy iyo saarin xanuuno badan oo dadkeena hayana waaye waxyaalaha qaarkood waxa u sabab ahne stigma iyo cultural beliefs iyo ceebta hadda qof hadduu xanuunsan yahay qofkan wuu waalan yahay la dhahay iyo waxaas u sabab ah ina support la helin hadana maxal dhahaa ilmaha qaarkood waxa lagu dareemi karaa mental illness and well-being mental health waxa lagu dareemi karaa qofka change of appetite so waxay cunaan sida uu cuni jireen cuntada maybe cunto marwaan inuu cunaano lack of sleep or too much sleep taasna waa qof hurdo badan amba hurdada yar ku yar tahay maxal social interaction so cuniga haduu family ku dhex jiro qol isku xiraayo oo dadku u soo baxeen asxaabtiisa banaan la raaceenin mid kalena waxa waaye struggling in school so schoolka markay joogaan waxay aqrisanayeen sida u aqrisanayeen wax ma u barnaayeen waxyaalaha qaarkood kalena ay dareemi karaan oo muhiim noo ah waxa waaye wax la dhaho suicidal thoughts or suicide ideations or self harm labadaasna waxa waaye qofka inuu naftiisa dhib gaarsiiyo suicidal self harm waxa waa qofka inuu naftiisa dhib gaarsiiyo suicide kana waxa waaye qofka inuu maskaxdiisa ka dhaadhacsiiso noloshiisaba inay qiimo lahayn oo maanta inuu isdilo ka faa'iidayo asiga naftiisa oo ka dareemayo relief marka as a community ina isku imaano waayo education sameeyno oo ka hadalno xanuunahan iyo oo community-ga garab siino some of the barriers oo maxal dhahaa barriers-na waxa waaye waxna hor istaagsan markii oo maskaxda xanuuninka la qabo waxa kamid ah cabsi oo anaka nagu jirto as a community hadii hooyo amba aabo ee cudurka mental illness ka qabaano waxay ka cabsanayaan dawladda inay ilmahooda ka qaado taasna wax oo run ah ma ahan unless naftaada amba cunigaada naftiisa halis ku jirto maxaa la dhahaa dawladda inay soo shaqo gashanayaano marka waa very muhiim in anakii ilmaheena is ilaalino oo noqono dad oo ay isku istaago naftooda first wax u qabtaano waxyaalo kale oo barrier ka ahna mid kalena waxa waaye lack of education ma ogin mental illness waxay tahay iyo meesha caawis laga heli karo iyo sidii caawis loo heli karo marka ina anaka is educate gareno oo ogaano waxyaalaha keeni karo iyo sida uga hormari karno wax kastana ma ahan daawo la qaadanayo amba isbitaal lagu xiraayo ma ahan counseling jirto waxyaalaha problemkaada kala hadli kartid iyo oo markaasna fikirkii iyo dhibka hadda ku haystay walwalka ku haystana waa ka caafimaadi doontaa with that waxa qaarkood support ku heli kartidna waxa way GP-gaada inta tagtid dadka badankood waxay dhahaan due to the fact that financial issues iyo financial strains ay access helenin marka hada GP-gaada tagtid wuxuu ku sameyn karaa mental health referral or mental health care plan wax la dhaho oo ku siinaya a one off psychiatrist assessment and you can see psychology 101 oo qofta psychologist kana waa counselor oo kaagala hadlayo dareemahaada dhibabka dareemaysid iyo ku siinaya strategies oo sida waxaas u xali doontid waxaa kaloo jirana government lines oo la isticmaali karo Beyond Blue Headspace so Beyond Blue waa dadka dhan isticmaali karaan Headspace dhalinyarada and maxal Lifeline iyo Kids Helpline marka anakana community ahaan waa inay joognaa soo hada wax dhib dareemaysiin waxa u tagi kartiin your local community co-house Soomaaliya ka shaqeeyana u tagi kartiin garabni la siina insha Allah